السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا ولا ليال channel كينا مندور سيدات كاركتي عوانك فيديو قرنانتي وحنو كهذا maanta موضوع aad muhiima noloshaadana wax badan ka bedeli doona موضوع ciwaankiis waxa uu yahay walaalayaal waa maxay qorshahaaga nololeed موضوع aad weyn weeyarnaantii maadaama noloshu u baahan tahay qorshayaal u baahan tahay tusaale hadaynu soo qaadno markaynu diyaarad ku safrayno oo aynu wadan kale tagayno diyaaraddaasi maxay ku socotaa diyaaraddaasi waxay ku socotaa qorshe laga fiirsaday jadwal loo baaraandegay oo ku saabsan xilligay kacayso yani meesha ay ka kacayso iyo meesha ay ku degayso iyo xilligay degayso iyo wadanka ay ku beegan tahay ay tagi doonto waxaas oo dhan way qorsheysan yihiin markaad fiiriso guusha inay meeshii tagto loo baahnaa mar haddii qorshe sii deganaa intee bay ka gaari kartaa runaantii nisbo weyn bay ka gaari kartaa percentage aad u weyn 99% maadaama loo dejiyay qorshe ka horeeya intaysan maaragtay duulin oo aysan tagin meeshii loo baahnaa taa ka soo horjeedkeeda haddii kabtan diyaarad karo isagoo markaa wax qorshe ah aan uga deganayn meesha uu socdo maxaa dhacaya ma suurtagal baa in diyaaraddaasi ay kacdo haddii ay kacdana maxaa dhacaya xageese uu ku soo noqonayaa xageese uu degaya waxa dhacaya inuu ku soo noqdo meeshii uu ka kacay aakhirka waxa dhacaysa inuu ku soo noqdo meeshii uu ka kacay oo ka bilaabay safarka maadaama aysan jirin wax maartay qorshe ah bani aadamkuna waa sidaas oo kale waa sida diyaaradda haddii uu bani aadamku yeesho qorshe wuxuu gaarayaa guushiisa nisbo weyn buu ka gaarayaa percentage badan buu ka xaqiijinayaa haddii markaas uu wax qorshe uusan lahaynna bartiisaas ayuu ahaanayaa weligiis xataa haddii uu isku dayo waxaa dhacaya inuu bixiyo awood fara badan iyo waqti fara badan laakiin marka dambe uu soo dhaco bartiina uu ka bilaabo taasi waxaa inooga caddaatay muhiimadda ay leedahay qorshuhu sidoo kale waxaa inoo caddaaday farqiga u dhaxeeya qofka guuleysanaya iyo ka fashilmaya bani aadamka guuleystay waa kale yani qorshe ka horeeya camalka uu qabanayo taa ka soo horjeedkeeda dadku inta badan ma lahan wax qorshe ah oo waxay doonayaan qorshe uguma dejistaan sidaas oo kalena ma gaarayaan meesha ay u baahan yihiin waa tasababaysa inaysan gaarin meesha ay u baahan yihiin haddaad fiiriso dadka hareeraha ku nool waxaad arki kartaa ama helaysaa dad awood badan ilaahay siiyey sida caqli firfircooni iyo wixii la mid ah maca daalika haddana dad fashilan inay yihiin baad arki doontaa sababtu waa maxay waxaysan garanayn dadkaasi meeshay ku jeedaan iyo waxa ay u yahay qorshayaashoodu marka ahdaaf iyo qorshayaal ma lahan taasi waa ta keenaysaa inay noqdaan dad fashilmay haddaad weydiiso mid ka mid ah waa maxay nolosha hadafkaad ka leedahay wuxuu kugu jawaabayaa jawaab ay ka muuqato hubanti la'aan iyo inuusan hubin ama aysan u caddayn meesha uu ku socdaa iyo hadafkiisu sidaa darteed waxaan arkaynaa ama ka aragnaa inta badan dadka yani heerka gaaray taariikhdoodu iyo dadka guuleystay inay lahaayeen ahdaaf waadix oo muuqda laga soo bilaabo meesha ay ka bilaabeen ilaa waxa ay doonayeen ka gaareen isla markaana awoodda ay saareen inay markaa ka mira dhaliyaan hadafkoodii waxaad kaloo ogaataa in farqi weyn u dhaxeeyo inaad qorshe dejisato oo aad u dejisato laakiin waxyaalo badan oo aan anfac badan lahayn ama wax iska guud oo markaa aan cayinayn taasi waa midda keenaysa inaad qorshe dejisato haddana wax badan aadan xaqiijin haddaad dadka qaar weydiiso maxaad doonaysaa noloshaada waxaa laga yaabaa inuu kugu jawaabo waxyaalo guud maal baan doonayaa yani waxaan doonayaa farxad iyo reyn guul baan doonayaa waxyaalaha iska guud weeye laakiin wax cayiman ma aha marka maxaa lagaga baahan yahay inaad qorshe dejisato qorshahaasina uu ku saleysnaado shay cayiman isla markaana wax awoodaada uu noqdo oo aad qaban karto taasi waa ta keenaysa markaas qorshahaas inuu noqdo mid maaragtay hirgala oo aad u fiican laakiin hadduu iska noqdo wax maaragtay awoodaada ka baxsan isla markaana wax guud oo dadka dhan kala dhaxeeyaan wax badan kama xaqiijin kartid tusaale ahaan haddii aan dhahno
arday dhigta caafimaadka yani hadafkiisu waxa uu yahay inuu dhameeyo yani caafimaadka inuu dhameeyo oo jaamacadda dhamaysto sax waa hadaf uu dhamaystay waa hadaf guud dad badan baa la wadaagaa arday kale tusaale ahaan haddaynu dhahno oo tusaale usoo qaadano arday ayaa jaamacadda dhigta haye caafimaad ku dhigta laakiin wuxuu rabaa marka uu ka baxo jaamacadda inuu ogaado xanuun gaar ah oo markaas ama qof uun qaraabadiisa ah ku dhacay ama cid kale oo uu yaqaano ku dhacay ama xanuun uun uu markaasi cayintay qofkaasi iyo qofkii hore farqi weyn baa u dhexeeya xagga inay xaqiijiyaan hadafkooda oo waxa fiican qofkan yani waxyaalaha gaarka ah dejistay qorshaha gaarka ah iyo shayga gaarka cayintay ayaa 100% fiican weeye waxaynu kusoo gabagabeynaynaa oo hadalka aynu kusoo koobaynaa qodobadan qofka bani aadamka ah hadduusan garanayn meesha uu aadayo dhammaan wadooyinkiisu waxay ku dhammaanayaan meel la'aan guusha sirta guushu waxay ku jirtaa oo ay ku qarsoon tahay in hadafku cad yahay sidoo kale in hadafku fudud yahay oo wax la qaban karana uu yahayna taasna waxay kuu sahlaysaa inaad fuliso qorshihii aad dejisatay dadka faashiliinta ahi inta badan waxay ku mashquulaan mashaakisha iyo caqabooyinka halka dadka guulaystaayay ay ku mashquulaan inay xaqiijiyaan hadafkooda ugu dambeeya ee ay rabaan